marka la weydiiyay saxaabada rasuulka kaleey salaatu wasalaam sida Anas ibn Malik Salama saxaabada dhowr kamida rag iyo dumar azwaajta rasuulka iyo saxaabada waxa la su'aalay maxaa ugu badnaa ducadii uu nabigu ku ducaysan jiray kaleey salaatu wasalaam waxay ku jawaabeen waxa ugu badnaa ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala diinik Allah qalbiga rogroga oo gedgediyo qalbigayga ilaahu diinta ku sug maanta waa tukanaysaa waa roon tahay maxaa noqon doontaa maada og wax ku dambeeya maxaa ku khaatumaysan doontaa adigoo sidee abad adduunyada ka tagi doontaa ma adigoo quman oo wanaagsan oo ilaahay ku xidhiidha oo cibaadadiisii ku quman baa tagi doontaa